وكلمة فضفاضة. فضفاض كما تغني مطاط وأري قذب العارن أي شاشة حويا محد سياسة وجهده محد سياسة الله يلعب هذا يتنقاق نولش يدك له هجامية تي هجامي أنت واحد بدل له هجامية قولي بده هجامين كرتا مساجد بده هجامين كرتا دعوة هجامين كرتا أورر بده هجامين كرتا بني آدم كو سياسته ما أفرت كرسي وصل ليا يعني وزيري يا أفرت عين كنا يعني مدة كله سؤالها وبها ندي بلوغ النقطة وحكم ده شغلة محاوفي عن قامت حقوقك أوده قامت على بعض وقتي وهي ليا قامت الصدحات يعني وحياة الشقة الغدور تاجرة من تلي وحي نقول حلا ووحبات كده مركا لغو سعلية لغو شكاية لغو شكاية لغو شكاية مركا دنبات قادمس مثلا human being in lasoo saaro iyo in computer lasoo saaro ama gantaal lasoo saaro ama gaari lasoo saaro iyo ma fiican nolosha ayaa qiimo ku leh shaqada human being inaad soo saarta ah iyo shaqada inaad computer samayso kiiba mudnaan leh يعني وين دمركو الأصل إنسان كان نلشة وحكي بدلون أن يجا صوصار عد كلا صوصار تما شفتو وهو الشد صوصار تبني آدم والشد كلا دم كمان كقيمة بلانتي لكن عكس بالله ينوب صوره هلا نقول قد فريسة صرت يك كذا ضد حينسة waxaa la rabaa inaad nolosha wax u yeelataan nolosha wax soo saartaan dumarku dayadaha la kiciya injineerada la noqda oo injineerada iyo ilmata dhashay tee qiimo badan teebaa qiimo badan nolosha riyalka markaynu maanta Yurub way qaylinaysaa aqoonyahankoodii cid badan oo ka mid ah مثلا Buchanan waxaad arkaysaa wuxuu qoray the death of the West waa nin mufakiriinta Mareykanka ugu weyn ka mid ah wariye ahaan jiray la taliye madaxweyne ahaan jiray saddex jeer baan filayaa isu soo sharaxay inuu madaxweyne Mareykanka ka noqdo ayaa wuxuu qoray bug la yiraahdo the death of the West geerida ninka cad uu sheegaya waa maxay waa hooyada la shaqo galiyay buu leeyahay Frankfurt School wala loo oran jiray oo falsafadaas faafisay buu ka waramaya marka wuxuu leeyahay waxay nabadeen in maanta ninka cad dunida ku nool oo dhami laba qof oo kasta nin iyo gabadh kasta oo isqaba labadii bedeli lahaanay soo saarin kuwii ku darsamayna dhaqa ka qaatanaa inta Talyaaniga 1.3 buu maraya yani inay dadku bulsho inay horumarto jirto 2.1 ayaa asala 2.1 waa maxay hooyaan labada isqaba ugu yaraan 2.1 inay dhali karaan si kala hadaan tilmaamo boqolka qoys waa imisa waa boqol iyo boqol gabdhood Soomaha inay dhali karaan 210 caruur ah iyagoo 200 hadii la rabo in la joogteeyo bulshadaasi tiradeedu inaanu yaraanin waa inay dhalaan baa la leeyahay maxay 200 iyo 2.1 inay dhalaan 1.3 bay marayaan 1.3 macnaheedu waa maxay waa saddex jiil ayaa Talyaanigu baaba'aya qof Talyaaniga la waayay wax ku dhadhow yani 200 Talyaaniga maanta jooga waxay dhalayaan 130 qof 130 kaas haddana 1.3 bay dhalayaan inta ka soo hadha 1.3 bay dhalaysaa haddana hoos uga sii socdo that means way dabar go'ayaan buugga ninkaas qoray canaawintiisa waxa ka mid ah الحيوانات المنقرضة buu bixiyay xayawaanka dabarka go'aya la rabo soo imka lama yiraahdo xayawaanada dunida ka sii yaraanaya meelaha zuuyada inta la keeno breeding ha loo sameeyo ha la badiyo ninka cad baa saa ku socda buu leeyahay xayawaanka dabar go'aya way buu leeyahay dunida imka sanad kasta buu yiri wadanka Mexico dal leeg ba dunida ku soo kordhay every year
waxay cadaanku waxba kama aha iyagu way sii yaraadaan dadkuna wuu soo badanaya iyaguna way sii yaraanayaan marka waxay noqonayaan buu yidhi beri dhow specieska munqaridka noqonaya dabarku ayabay noqonayaan muxuu leeyahay cilladu waa maxay cilladu waxa weeyaan buu yidhi inanta cadbaa waxaa lagu qanciyey inay ninka la beranto marka wuxuu leeyahay 30 sano hore kaariyarkeeday dhisaysaa waxay dhisaysaa aqoonteedii iyo waxbarashadeedii iyo 10 sano ku xiga waxay dhisaysaa boos sare say u qabsan lahayd waa dee meel hoose ka soo bilaabaysaa dabeetana say jaranjarada u soo kori lahayd qiimada waxay gaadhaysaa buu leeyahay markay waxba dhali weydo dan waxay soo halganka ku jirtaa buu leeyahay ilaa iyo intay wax dhali karaysay markay timaadana booska sare markay timaadana waxay soo gaadhaa buu leeyahay fitradaani waxba dhalaynin waxaanu u baahanay buu leeyahay haddaynu rabno inaynu noolaano inan kastoo cad in lagu qanciyo ayaydeed intay dhali jirtay inay dhasho bay leedahay taa macnaheedu waxa weeyaan ayaydeed 7 iyo 8 bay dhalayeen yurub waa bay dunida qabsadeen markay tarantoodu markay badatay bay ku filaan weyday waddanku dabeetana dowladahoodiiba intay hub siiyeen yidhi qabsada dunida kale settlementska markaasay sameeyeen maraykan qabsadeen oo kanada qabsadeen oo australia qabsadeen oo afrika qaybo dhan degeen oo dadkii joogay laayeen oo iyagu ku dhaleen meeshay degeen waa tiradii iminkana maxaa jira haddana waxaa jira bay yidhahdeen cagsiga waan sii yaraanaynaa saa daraaddeed bay leeyihin dadka benshanka gelaya iyo dadka shaqada gelaya dadka benshanka gelayaa badan saa daraaddeed benshan la heli maayo bay leeyihin haddana cashuur laga qaado dadka la helaynin oo markaa maxaa xal ah dhali weyne dan maxaa xal u ah qaxoonti ha la qaato politicska raggii joogay waxay leeyihin waddankani ma jirayo habartii Germany haystay maxay tidhi Germany sanad kasta waxay u baahan tahay bay tidhi 500,000 people inay qaato minimum 500,000 people dabada kuwii culture-ka ilaalinayna waxay yidhaahdeen dhaqanka iyo diinta naga bedelmaysa marka waxa la isku hayaa ma dalkaynu ilaalinaa inuu jiro oo dad baynu qaadanaa dad kaloo dhalayaana ma jiro afrikaanka iyo muslimka mooyaane ma dalkaynu ilaalinaayo dhaqaalihiisa iyo siduu u jiri lahaayoo dad kalaynu qaadanaa mise dhaqanka iyo diinta iyo ninka cad baynu ilaalinaa waa isla dunnaa waxay leeyihiin siyaasiyiintu waynaynu kala dooranaa caqli gaboobay iyo guryo gaboobay iyo dowlado gaboobay iyo dad sii maranaya inaynu ahaano iyo inaynu refreshment samayno iminka soomaalidu loo qaatay yurub iyo meelaha kale ma wax kale loo haystaa baad moodaysaa waa warshada dhasha iyagu caruurtay biiriyaan waddankay dhalkayaan nin waliba wuu yimi 10 buu dhalay 8 buu dhalay gaaladina waxba dhali mayso shaqadii bay gelayaan shaqada sare weli lama siinayo shaqada hoose ay buuxinayaan idan waa warshadii la rabay bini aadamka inay biiriso ka waxaan uga jeedaa caqliyada yurubku hadday intaynan odhanin way fiicnaadeen iyo dumarkiibaa wax noqday siyaasadda ka qabay kan intaynan odhanin aan isweydiino maxaa natiijadii ka dhalatay ay noqoto natiijadii gabadhu inay ninka la loolantay inay madaxweyne noqoto yes madaxweyneyaal bay noqdeen duuliyayaal bay noqdeen khubaray noqdeen meel kastay galeen laakiin maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay rag iska celintii 2 nin inay noqdaan suurtagal maaha labadan shaqo inaad isku qaban kartaa human being wax ah inaad soo saarto human being kan la geeyo kindergartenku dad noqon waysna waxaa soo baxa dadaan naxariis lahayn hooyadaan naxariista laga helo hooyadaan adag joogto ee naaskeeda nuugayso ee dhabteeda ku kaajayso ee aad la nooshahay hooyadu soo ma ogid ma tiriso gafka ilmaheeda inta badan hooyadu ilmaha aanay dhalin ay korisiye ilmaheedu isku mid ma noqdaan waayo inta badan majority sababta waa maxay waxa weeyaan ilmaha aanay dhalin markay korinayso gafkiisa way tirisaa maanta koob buu jabiyey shalay sariirtuu jabiyey maalintii ka horreysay waxaasuu sameeyey odagu markuu yimaado inaan kalo islaan kala dhashay uu islaamtu hayso waxa la waa kii waxaa sameeyey maalin kasta waa ishtako kuweedu intanba way sameeyeen laakiin ma tirsanaa waayo waa hooyadood record ma lihid adiga hooyadaa ma hayso weligaa waxaad dhib geysatay inankeedii fiicnaayee dee soo koray ubaa tahay intan ka yara kale uu sameeyey intaba waad samaysay sariir waa jabisay oo waa jabisay oo laakiin dee waa hooyadaayo kalgacalka iyo naxariistay ku haysaa wuxuu keenayaa
inaan waxba laguu tirin. marka ilmaha hooyada ku akora lama mid aha. bal ka waran hooyo sinaaciyo 40 caruur halkee ku haysaa, waa ilma aan naxariisba baranayn bay yidhaahdaan. waa ilmuhu kama maarmay bay dhaheen markuu yar iyo hooyo u gaara oon cid kale la wadaagin. walidalik caruurtu markay isku dhalasho xigto dhabta islaanta waa la isku haystaa, dee kolba ka yar baa raba inta kale inuu ka riixido. waayo meesha tani waa meel khatara oo nimco laga helo, marka waa inaad kuwa kale laga durkiyaa. idan waxaynu oga jeednaa intaynan isweydiinin gabadhu siyaasadda mageli kara maxaynu ka helaynaaba isweydiinya bulsho ahaan maxaa soo kordhaya. yes waad qaban kartaa wax badanoo raggu qabto, waa qaban kartaa wax badanoo ka mid a waxa raggu qabto. waxa aanay qaban karin waa jiraanoo mentally isku siba uma fakerno. maanta scientifically waxaa la leeyahay ninka iyo gabadhu isku si uma fakeraan, isku qaab maaha. xataa tijaabada waxay gaadhsiiyeen in hablo la qaado oo sida ragga loo tababaro from maalintay dhalatay. qoladan gaalada ee akhlaaq xumada wadaa waxay ku doodeen ninnimadu iyo gabadhnimadu bay leeyihin waa culturally sida loo koriyo. ninna ma jira gabadhna ma jire, ninkana waa la gabadhayn karaa, gabadhana waa la ninayn karaa, that's all. ee waa cultureka bay leeyihin wax lagu koriyo. deetana waxay dhahan maan practical la sameeyo. israel baa lagu sameeyey practically, dumar la qaado ragnimo loo tababaro. waxa la laaliyo wuxuu inanku qabanayo unbaa loo dirayaa. inay gabadh tahay waa in laga masaxaa, waa in la tababaraa sida ragga inay u fakerto. stage markay soo gaadhaan bay leeyihin mentally ninnimada iyo gabadhnimada isku mid maaha. waxaa akhridaan almukh the mind bugga la yidhaahdaa ama the brain uu qoray nin tabiibaa qoray. wuxuu ka warramaya tajaaribtii casriga ahayd ee lagu sameeyey caqliga dumarka iyo caqliga raggu. waa laba caqliyo kala nooca. maaha macnaheedu caqliga ragga wax walba ka fiican, wax badan ay kaga fiican yihiin dumarku baa jira. maalan dumarku waa multi processing bay yidhahdaan caqligoodu. ninka caqligiisuna waa waxbuu tarkiisiyaa. waa labada shaqe ilaahay ugu talagalay. gabadhu waa multi processing caqligeedu, shaqooyin badan bay isku mar qaban kartaa. islaamtu iyadoo dheriga walaaqayso karinaysaa ay ka naxfaayada ka bedelaysaa, kaana leedahay hala seexiyo mar quray waxaa wada qaban kartaa. adiga haddii kujada lagu geliyo adigoo beriska walaaqayo mid yare dacalku qabto naga qabta baad leedahay shaqaadu ay nagu nuuleeyeen. waxay leeyihin waxbuu tarkiisiyaa caqligiisu, hal waxa buu qaban karaa. laakiin caqliga hooyadu bay yidhaahdaan waxa weeyaan waa multi processing. isha dumarku bay yidhaahdaan iyo isha raggu si waxumada. isha gabadhu balladka way uga badantahay intay ka arki karto isha raggu intay ka arki karto. saa daraaddeed bay yidhaahdaan drivingka way yartay gabadhu inay accident gasho, laakiin accidentskay sababaan bay yidhahdaan conservative-nimadooda daraaddeed. laakiin inta badan iyagoo accident kama galaan bay yidhahdaan. waxaan uga jeedaa war waa laba abuuroo kala nooc ah. waa laba abuur oo wax badan ay ku kala gedisan yihiin ay jiraan. laakiin waxaynu isweydiinaynaa maxaa bulshada u faa'iido badan leh, maxaa mujtamaca u faa'iido badan leh, maxaa iyada ubadkeeda u faa'iido badan leh. hooyo shaqo tagtay ama bolosi ha ka shaqaysay ama warshada ka shaqaysay ama meeshay doontaa ka shaqaysay, soo daashay iyo oday soo daalo guriga yimi, waxba caruur uma qabtaan. yani waa tajaaribta yurub lagu hayo. salaada ka laha iyo oday salaada ka laha iyo ciyaal salaada ka laha, guri 8 la faaruqiyo dhammaantii 4 ama 5 galabnimona loo soo wada hoydo oo qof waliba isagoo daalan meel ku dhaco, waxaa ka soo baxay caruur la-aan. marka mostly waxaynu isweydiinaynaa hooyadu ma ubad fiican inay keentaa bay rabtaa oo nolosha isbeddel ka samayso, mise siyaasadda inay wax ka bedeshaa bay rabtaa. labadaba waa samayn kartaa wax badan oo ka mid ah. laakiin yaa bulshada u fiican, yaa iyada gurigeeda u fiican, yaa ubadkeeda u fiican, taa isweydiina wallahu aclam. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. جزاك الله خير.